dowladda Qatar ayaa heshiis waxa ay la gashay shirkado shidaal baaris ka wada qayb ka mid ah badda Soomaaliya ee ay Kenya doonayso. Burhaan Diini Faarax ayaa faahfaahinaya. shirkadda shidaalka dalka Qatar ee la yiraahdo Qatar Petroleum ayaa heshiis la gashay laba shirkadood oo kale oo shidaal baaris ka sameynaya badda Soomaaliya ee Kenya ay doonayso. Sida lagu qoray bogga Twitter-ka ee shirkadda Qatar Petroleum, waxa ay shirkaddu heshiis la gashay shirkadaha Eni iyo Total oo dowladda Kenya hore ugu ogolaatay inay shidaal baaris ka sameeyaan badda. Qatar Petroleum waxay helaysaa saami dhan 25% sida heshiiska ku cad. Shirkadaha kalena waxay helayaan 41.25% iyo 33.75%. Shirkadaha Eni iyo Total iyo Qatar ayaa sahmin shidaal baarisa ka samayn doona aaga L12A, L12B iyo L12, waxaana lagu dhawaanayaa ilaa laga gaaro magaalo xeebeedka Lamu ee dalka Kenya. Waa qayb ka mid ah badda Soomaaliya ee Kenya doonaysa inay baaris ay ka samayso shidaalka ku jira, taasoo keentay in dowladda Soomaaliya ay dacwad u gudbiso maxkamadda cadaaladda adduunka oo weli go'aan laga sugayo. Madaxa shirkadda Qatar Petroleum oo sidoo kalena ah wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta dalka Qatar, Saad bin Sharida Al-Kabi, ayaa sheegay inay farxad u tahay inay ka qayb noqdaan shirkadaha shidaalka ka baaraya badda Kenya, sida uu yiri, taas oo xoojinaysa buu yiri joogitaankooda Afrika. Waxaan ku rajo weynahay inaan ku guulaysano sahminteena annagoo kaashanayna saaxiibadana Eni iyo Total iyo dowladda Kenya. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dowladda Kenya oo fursadana siisay, ayuu yiri Saad bin Sharida Al-Kabi, wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta dalka Qatar, ahna madaxa shirkadda Qatar Petroleum. Kenya ayaa doonaysa inay isku ballaariso xuduud badeedka Soomaaliya si ay shidaal uga soo saarato, waxaana arrintaasi keentay in kiiska la geeyo maxkamadda cadaaladda adduunka. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta waxa uu tababar u soo xiray saraakiil ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya ee dowladda Turkigu ay ku tababartay xerada Muqdisho ku taala. Axmed Siciid Axmed ayaa faahfaahinaya warkan. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xerada tababarka ee Turkisom waxa uu maanta tababar ugu soo xiray 152 sarkaal oo saraakiil iyo saraakiil ku-xigeen isugu jira, kuwaas oo qayb ka noqonaya saraakiisha ciidanka xoogga dalka. munaasabad kooban oo lagu qabtay xerada ciidanka Turkisom waxaa ka qayb galay gudoomiyaha aqalka sare, wasiir ku-xigeenka difaaca iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ciidamada la hadlayay ayaa sheegay in loo baahan yahay inay dalka difaacaan oo ay soo celiyaan amnigii iyo kala dambeyntii maadaama ay dalka u dhaarteen. maanta waa arkaan waxaan hor taaganahay dhalinyaro yaryar oo laga yaabo 30 gaari oo haysta akademi oo waddanka dhexdiisa ugu soo baray. waxaan saaray waajibaad aad iyo aad weyn oo baaxad weyn. waa tidhaahdeen waxaad ku dhaarteen inaad dalka daacad u noqotaan, waxaad ku dhaarteen inaad dalkiina difaacdaan oo u dhimataan, waxaad ku dhaarteen inaad wadaniyiin tihiin. taasna waxaa laga rabaa kulli ciidamada qalabka sida ay ku dhaartaan, maxaa yeelay daacadnimadu waa nolosha hufteed wey. daacadnimadu waxay ka bilaabataa inaad aaminsan tahay inaad waxaad leedahay, inaad dowladnimo leedahay, inaad dalka leedahay oo aad ilaashanayso oo aadan dibidaadleenayn oo aadan cadow ugu shaqaynayn oo aad difaacanayso oo aad ka ilaalinayso wax alla wixii magaxxumo iyo shar ku keeni kara. dalka inaad dhimataan, hawsha aad ku jirtaan shaqo maaha. hawsha aad ku jirtaan waxa weeye waxaad seexdeen 2 sano ka hor inaad dalka u dhimanaysaa. wax ka weyn oo lagu hibeeyo ama loo hibeeyo oo bini-aadan ka qaadisa nolosha ma jirto. sidoo kale madaxweyne Farmaajo waxa uu u mahad celiyay dowladda Turkiga oo saraakiishan tababartay, isaga oo sheegay in Soomaaliya iyo Turkiga uu ka dhaxeeyo xiriir sal adag leh oo aan dan ku saleysnayn. waxaan ku ammaanayaa dowladda Turkiga sida wanaagsan ee waatanimo leh ee noo garab taagan yihiin ee noo gacan qabanayaan inaan cagaheeda ku istaagno oo aan dib sharafkeena iyo karaamadeena u soo ceshano. calaaqaadka naga dhexeeya dowladda Turkiga iyo Soomaaliya iyo dowladdan iyo labada shacabka kaliya amni maaha oo tababarada aragteeda maanta ma aha. waxa weeye xiriir dhaqaale iyo xiriir siyaasadeed weeye oo aan ku dhisnayn dana gaar aan ku dhisnayn. waa in hela mahad celinayaa dowladda Turkiga waareenaha. dowladda Turkiga ayaa Muqdisho ku leh saldhig weyn oo ay ku tababaraan ciidamada dowladda, iyadoo dufcadanna ay noqonayso tii labaad oo tababar loogu soo xiro xerada Turkisom ee Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow iyo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa Muqdisho waxa ay uga wada hadleen mashaariicda horumarineed ee qaramada midoobay ay ka fulinayso magaalada Muqdisho. Yunus Durraan Cali ayaa dhamaystiraya faahfaahinta warkan.
maamulka gobolka banaadir iyo wafdi uu hogaaminayo wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya James Swan ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta gobolka banaadir ee Fisha Goberno kulanka oo saacado badan qaatay ayaa labada dhinac waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka u dhaxeeya gobolka banaadir iyo wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya iyo in qaramada midoobay gobolka banaadir ka taageerta dhanka mashaariicda horumarineed maadaama gobolka banaadir uu yahay xarunta ay ku shaqeyso dawladda Soomaaliya iyo arrimo kale oo badan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Abdiraxmaan Cumar Ismaaciil Yariisow ayaa kulanka kadib warbaahinta uga warbixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen wafdiga hogaaminaya wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir waqti dheerna waa la qaadanay anigii gudoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolka banaadirba oo aan u soo sharaxnay horumarka gobolka uu sameeyay sanadkii barkii waxaan u soo sharaxnay howlaha hor yaalla sida aan u daneynayno bulshada aan ugu gurmano wax loogu qabto sida haweenka iyo dhalinyaradu ay lafdhabar ugu yihiin horumarka caasimadda ka jirta waxaan kaloo u soo sharaxnay mashaariicda horumarineed aan ka fulinayno waxaanan ku ballanay in xiriirkii iskaashiga wada shaqaynta aan xoojino marka runtii maanta ujeedadeedu intaas ayay ahayd ergeyga qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya ayaa maalmihii dambe waxa uu waday kulamada uu la qaadanaya madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka isagoo kala hadlaya in ay yeeshaan wada shaqayn dhow waxaana uu booqday James Swan magaalo madaxyada qaar ka mid ah xarumaha maamul goboleedyada ka jira dalka sida Jubbaland, Puntland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. khilaaf xoogan ayaa waxa uu u dhaxeeya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo gabadha la yiraahdo Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka khilaafkaas oo gaaray heer madaxweyne Trump uu ku baaqo in Ilhaan Cumar ay dalkeeda Soomaaliya dib ugu laabato haddaba maxaa Ilhaan iyo odayga kala haysta waxaa warbixintan inooga diyaariyay Maxamed Axmed Maxamuud oo warka ila akhrinaya dib u celi iyada waa erayadii ay Donald Trump ku dhiirigeliyeen dadweyne uu isu soo bax kula hadlayay si uu ugu sheego mowqifkiisa soo galootin nacaybka ah ee uu mar kale doonayo in lagu soo doorto sanadka 2020 inkasta oo uu aad u diidan yahay soo galootiga oo dhan haddana madaxweynaha Mareykanku waxa uu si gaar ah weerar joogto ah ugu qaadaa Ilhaan Cumar oo isku darsatay 3 sifo oo uu necab yahay madaxweynuhu mar waa soo galooti iyada oo qaxooti ah loo ogolaaday inay Mareykanka degto mar waa dumar muslim ah marna waxa ay xubin firfircoon ka tahay xisbiga dimuqraadiga ee ay sida weyn u loolamaan waxa ay noqotay gabar muslim ah oo qaxooti ah tii ugu horeysay ee ebid Kongareeska Mareykanka loo doorto waxayna iyadoo saaxadda siyaasadda federaalka Mareykanka ku cusub ay lugaha la gashay arrin muran badan dhalisay oo ka dhan ah Yahuuda Ilhaan Cumar ayaa qoraal ay bartida Twitterka ku soo qortay bishii February ee sanadkan waxa ay ku sheegtay in kuwa Yahuuda u ololeeya ay dhibaato ku yihiin siyaasadda Mareykanka balse maalmo kadib raaligelin ayay hadalkaas ka bixisay kadib markii ay cambaareen kala kulantay Donald Trump aqalka ay ka tirsan tahay iyo siyaasiyiin caana wixii markaas ka dambeeyay Ilhaan Cumar waxa ay Trump u noqotay tuke baalcad oo tusaale ugu soo qaato hadallada uu ku weerarayo soo galootiga iyo muslimiinta waxa uu Ilhaan ku eedeeyay in ay wax yar ka soo qaaday weerarkii 11 Sebtembar 2001 isla markaana aysan wax xanuuna ku hayn dhibkii ay dareemeen dadka Mareykanku markii daaraha New York la weeraray Omar minimized the September 11th attacks on our homeland saying Ilhaan Cumar waxay hoos u dhigtay weerarkii 11 Sebtembar iyadoo leh dad ayaa wax sameeyay ha sax dad ayaa wax sameeyay some people did something all right ka sokow in madaxweyne Donald Trump necab yahay soo galootiga haddana marwada koowaad ee dalka Melania Trump waxa ay ka soo jeedaa Slovenia waxa ayna astaamo la wadaagtaa gabdho uu haaraamay madaxweynuhu hadal uu 17 bishan July jeediyay ayuu sidoo kale Ilhaan Cumar ku tilmaamay in ay Al-Qaacida ku faanto taasi oo la xiriirinayay in ay taageersan tahay weerarkii Al-Qaacida ay Mareykanka ka geysteen Omar laughed that Americans speak of Al-Qaeda Ilhaan Cumar waxay hadalkii Mareykanka ee Al-Qaacida uga tagtay cod aan waxtar ahayn waa in aadan sidaa dhihin Amerika waxaad sheegtay in Al-Qaacida ku farxad geliyaan Al-Qaeda makes you proud nacaybka Donald Trump ee ka dhanka Ilhaan Cumar waxa uu heerkii ugu sareeyay gaarsiiyay markii uu 15 bishan weerar adag oo afka ku qaaday 4 gabdhood oo Kongareeska Mareykanka ka tirsan Ilhaanna ay ka mid tahay waxa uu sheegay inay ka yimaadeen wadamo dawladahoodu yihiin musiibo kuwa ugu xun uguna musuqmaasuqa badan maxaadnan dib ugu laabanaynin oo aadnan u caawinaynin in la xalliyo burburka iyo dambiyada ka jira meelihii aad ka timaadeen markaasna dib noogu soo laabta oo na tusa waxa aad qabateen ayuu yiri Trump
ilhaan cumar oo ka jawaabtay hadalka donald trump ayaa sheegtay in uu ku tumanayo dastuurka, inuu ku xadgudbayo xuquuqda aadanaha, inuu awoodo shisheeye faragelin u oggolaaday, inuu dadka kala qaybinayo iyo inuu yahay madaxweynihii ugu musuqmaasuqa badnaa ee taariikhda Maraykanka. We have to take action when a president is openly violating the oath he took to the Constitution of the United States. Waa inaan tallaabo ka qaadnaa markii uu madaxweynuhu si furan ugu xadgudbayo ballantii uu ka qaaday dastuurka. Kani waa madaxweyne si furan ugu xadgudbay qiyamka uu wadankeenu uu ka rajaynayay inuu ilaaliyo sida sharciga oo loo siman yahay, madax banaanida diinta, difaacidda loo dhan yahay iyo difaacidda dacwad oogista. Si uu taas u hor istaagana waxa uu bilaabay weerar takoor ah oo ka dhan ah 4 gabdhood oo loo soo doortay aqalka wakiilada Maraykanka, dhammaantoodna waa haween midab ah. Ma jeclaa wax aan ahayn inuu wadankeenu ku kala qaybiyo midabka, diinta, jinsiga, wacyigelinta ama socdaalka, sababtoo ah taasi wadada kaliya ee uu ogyahay inuu ka hor istaagi karo iskaashiga aan ku wada shaqaynayno si walba oo aan u kala duwanahay. This is the only way he knows he can prevent the solidarity of us working together across all of our differences. ilhaan cumar oo aqalka Kongareeska kaga soo biirtay gobolka Minnesota ayaa nacaybka Donald Trump waxa ay ku heshay taageero dheeri ah. Waxaa si weyn isu barbar taagay dadka ay matasho ee Minnesota, hoggaanka aqalka ay ka tirsan tahay iyo siyaasiyiin hore sida uu sheegayo Professor Maxamed Cali Kalay. wadamadiina ku noqdo soo dhisa markuu yirina ay u sheegtay in xaaskiisa aysan Maraykanka. Marka hadii wax la eriyayo taada ka soo bilow Minnesota kaliya ma aha, Soomaaliya meel kasta joogto codka Maraykanka ayuu dhan waxay ku raacsan tahay hadaasi lagu aflagaadooday wadankeeda iyo bini'aadamadeeda meel looga dhacay. Waan fiiriyay baarlamaanka iskula jiraan, marka dad badan oo aan ogoleen oo maxaa ka soo horjeeda erayadan iyo jinsi nacaybkan ayaa buuxay. Dadka isku caqli ma aha. waxay u istaagtay in madaxweynaha xilka laga qaado, waxa ayna Kongareeska u gudbiyeen koox ay iyadu ka mid tahay mooshin xilka xayoobina, balse si aqlabiyada ayaa mooshinkaasi lagu diiday. I have not made impeachment central to my election or my tenure. xilka qaadis udub dhaxaad ugama dhigin doorashadeydii, laakiin maalintii la isoo doortay waxaan dadka ku iri hadda maahan haddii xilka laga qaadayo, laakiin waa goorma. sidaa darteed waa markii aan madaxweynaha ka joojin lahayn in uu sameeyo xadgudub ka dhan ah dastuurkeenna, waa markii aan xilka ka qaadi lahayn madaxweynahan. It's time for us to impeach this president. Trump oo aan daynaynin aragtida nacaybka ah ee uu tusaalaha uga dhigtay ilhaan cumar iyo gabadha Soomaaliyeed oo aan daynaynin in ay jawaab ceeb iyo cambaarayna siiso, ayaa taasi waxa ay qabsatay cinwaanada hore ee warbaahinta caalamka. sidoo kalena waxa ay taasi gabadha ka dhigtay xiddi ka soo baxday siyaasadda Maraykanka. arrinkooda ayaa maraya ilhaan iyo maxaa odaga kala haysta.